ninkaasi wuxuu ahaa nin taabiciya oo laakiin caalima oo ummaddu ay aad iyo aad uga dambayso sharafna intaasaa ugu filayd laakiin waxaa loogu abtiriyaa gabadh uu qabo inuu dhalay abu hurayra radia allahu canhu inta waxaa u dheer inan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey qurux iyo akhlaaq iyo cilmiba leh amiir almu'miniin iyo caruurtooda iyo dadka umarada iyo dadka xoolaha leh maalin walba mid bay soo direen waxay dhahdeen bal inantan nasiyo inankaan u guurine wuu diidaa ma doonin mar inantayda inan meel fitna ageeyo waxaa markaa la soo sheegay nin ardadiisa ka mid oo dhalinyaro cabdullaahi bin abi wadaaca la odhan jiray ayaa 3 cisho ayuu ka maqnaa xalaqadii maalintii dambe ayuu yimi saciid bin musayyib markii xalaqadu ay dhamaatay buu ku yiri war maxaa dhacay 3 cisho kumaan arage maxaa dhacay wuxuu yiri yaa imaam buu yiri gabadhii bay iga dhimatay xaaskan qabay ayaa dhimatay reerkii reexaas markaa inantii gabadhii baan aasayay xaaskii baan aasayay 3 cisho waan mashquul baan ahaa iga raali ahaa wuxuu yiri war ma guursatay islaamiinka oranayaan bal waxay kaas muu jeclayn baa la oranaya iminka markaa ma guursatay buu yiri 3 cisho ka soo wareegtay reer ma yeelatay wuxuu leeyahay imaam buu yiri waman yuzawijni yaa ii guurinaya nin faqiir baan ahay yaa ii guurinaya adduunka 3 diinaar iyo 3 dirham ayaan ka leeyahay ba xoolo aan sheegto oo inaan ugu geed fadhiisto aan yarad iyo meher iyo aroos ugu waxaas maba jiraan buu yiri yaa ii guurinaya inantiisa wuxuu aniga ka war haddaan ku guuriyo inantayda فاطمة بنت سعيد وحول ما أرجع حبرت واني ميان نحا مسوان فرحة مشاكي باي وحن وذاتكم يروا شيء مسح وحكوها الله يا حقيقة إيه مهري بولي وايه الله بقول يا مركا وار مرخاتي كالنقضة إن النكر إن أنت لي أنسيي وحي لي مركا وحن هاي فقير كحيان سعلوك شيل ما يسبوا يدي وانا صومنا gurigii baan iska tago iska soo afur wataala tukaday waan tagay gurigii baan iska dhex fadhiis wuxuu yiri marka qurus yaro roodiyo angegan aan saliid anoo ku dhuuqaya wax kale guriga ima yaalaan buu yiri in yaro milxo angegan ayaa albaabka la garaacay فقلت من وكما قال سعيد وسعيد بو يiri wuxuu yiri سعيد waan aqaanay magaci uu igu soo dhacay buu yiri tolma سعيد hebel ba مسوى سعيد هبل مسوى نينكا سعيد بن المسيب مويان وايا بو يري أفرتن سنضاد waxay ahayd caadadiisu inuu cishaay uu tukado oo gurigiisa uu tago cid la muhadli jir albaabkii baan furay waaba saciid ibn musayyib taagan meeshii maxaa dhacay buu yiri ma ii yeedhi ana ku iman lahaay ma yeebuli laakiin waxaan dareemay buu yiri inaanay cadaalad ahayn inaad kaliga caawa saaxatid ayadoo gabadhii guriga magaalada gabadhaadii magaalada ay joogto wuxuu yiri markaa intuu ka yara dhaqaaqay mise waaba gabadhii halkan taagan buu yiri waaba gabadhii halkan taagan wuxuu yiri markaa wuu soo riixay albaabkii buu noo soo xiray maanu wada sheekaysanin maanu haasaawin caankay u egtay garan maayo niqaab bay xiran tahay ayadoo ima garanayso inan de ma sha Allah Facebook raga kala haasaawada may ahayn ee waxay ahayd gabadh de ku eeg oo gurigeeda taqaana oo diinteeda taqaana wuxuu yiri markii ay soo gashay oo albaabkii noo xiray ayay inantu sooxday naxdid awadeed anna wuxuu yiri marka waan naxay horta wuxuu yiri lugtan ku yara dhuftay roodhidii iyo ciid iyo milixdii waxaan sidii ceebtaada arkin ay astur wuxuu yiri waan cararay dushaan isku taagay waan qayliyay kooyadana guriga ka maqantay wuxuu yiri yaa ayuha الناس زوجني سعيد بن المسيب ابنته سعيد بن المسيب إن أنت سبوا جوريه حتى يعرفتان برتو جوري قبل كسر بحيسة هورنا ودات كسوق مذوب مري إلالي أوكسون هذا وحيري إسلام حافظ دايدو شار كيجا آيات كذبت بينالات هبيتري سعيد بن المسيب حين أنت هذا السعلوك أديو كلا وقدرية
hooyadii bay maqashay buuri qayladii waxay igu tidhi in lamastaha haddii aad inantaa taabatid fawaylaka uma waylak waan ku dilaya haddaad inantaa taabatid bay wuxuu yidhi way islaantii baa timi inantii baa gurigii baa layga saaray markii gurigii layga saaray ayaa hadhow lay yeedhay inantiioo la qaaday la soo qorxiyey la soo hagaajiyey maasha allah laysoo diyaariyey wuxuu yidhi waan soo galay famaa ra'aytu ajmala minha qad gabadh ka qurux badan weligay ya allahay madaxay kumay soo dhicin buu yidhi waa nicma wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkii baa de labayk allahuma labayk ka bacdi buu yidhi subaxdii baan kacay idan iminka arday baan ahay odayga dee aan inanta ka guursana waa macallinkayga ma habsaami karo waan tegey buu yidhi waan baxay waxaan doonay inaan baxo ilaa ayna bay ku tiri xaggaad tegaysaa dee odaygii sheekh saciid ibnu musayib wax ka soo dhiganaya qaalat ijlis fa cilma abi cindii wuxuu aabbahay yaqaano oo dhanba anigaa haye bal yaro fadhiisa bay tiri okaay anaga wax ku dhigayeen hablaha maanta intooda badan ilaa maa raxima rabbuk marka la guursado midka odhanaysa cilmi baan ku hayaa ma jirto ama waxbaan ku dhigayaa ma iskaba daataa laakiin laga yaabaa inay ku tidhaahdo bal inagee shariton ama inagee meel kale inagee ama adduun iyo umuurihiis ay ka dhammaan weydo